maanta waxaanu qayb ka nahay taariikh aad iyo aad caan uga ah dalkan Mareykanka lana oran karo waxay aad iyo aad sidoo kale caan uga tahay dunidoo dhan oo filimo badan laga sameeyay waxaanu ku sugannahay bartamaha magaalada Dallas ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka dhismahani waxa weeye dhismihii 22kii bishii November sanadkii 1963 laga soo toogtay madaxweynihii aadka loo jeclaa waqtigaasi ilaa imikana aadka loo hadal hayo dalka Mareykanka ee John F Kennedy dabaqa lixaad ayaa laga soo toogtay dhismahani wuxuu aad iyo aad caan ugu noqday toogashada laga soo toogtay madaxweyne John F Kennedy haddaba maanta waxay la socday injineer Cabdi Daahir Aaye oo isagu muddo dheer deganaa magaaladan Dallas isla markaasna aad u yaqaana ama ula socdo taariikhda dilkii John F Kennedy Cabdi horta imisa qof baa soo booqda halkan aynu joogno maanta sanadkiiba tirahaan waxa loo qiyaasay ilaa 350 sanadii inay soo booqato museum-kan iyo meeshan madaxweynaha lagu toogtay museum-ka dabcan goordhow baynu geli doonaa markaaba taariikhdii un baa lagu xafidaa madaxweyne Kennedy waxa lagu xafidaa sidii uu dhintay cidii dishay halkuu marayay markuu yimid wadankan iyo waxyaalo wadankan u qabtay madaxweynuhu ahaa madaxweyne caan ka ah wadankan waatay wuxuu ahaa madaxweyne halbeeg waa madaxweynayaasha kale magaranaysa laga soo doortay wuxuu ahaa meel qiyaas laga qaato wanaagiisa waa arrinta doonayay inaan ku weydiiyaba taas 2 sanadood iyo 9 bilood ayuu xukunka hayay maxaa sabcadiisa cirka saa u geeyay horta madaxweynuhu wuxuu ahaa madaxweynihii labaad ugu yaraa 43 jir buu ahaa haba ahaadee markuu waddanka yimid madaxtinimada qaaday wuxuu bilaabay inuu markaa barnaamijyo aad iyo aad u wanaagsan oo dadku ugu deersadeen uu sameeyo waxaa ka mid ahaa barnaamij loo jiray Peace Corps oo loogu diriyay dad badan oo Mareykan ah wadannada kale mutadawiciin oo dad masaakiin dadka wadannada adduunka ah loogu diriyay wax soo baraan ama dhaqaalaha sameeyaan ama siyaabo kale ha sameeyaan Soomaaliya markay joognay Peace Corps inuu maqli jirnay oo macallimiin waxa kale uu sameeyay wixii la oran jiray ani Soomaaliya laga hayaa qabaal fuulay ama orgid bi ka dhiganaaba oo sida kale ahayd toddobaadka wayna sabada aadna madaxweynaha waxa ninkii yiri 10 sano soo socota waa in dayax la tagaa iyadoon wali lahayn ma garanaysa farsamadii lagu tagayay marka visionkaas uu lahaa ma garanaysa in dayax la mid waana laga dhabeeyay 1960kii Mareykanku dayaxu tagay wuxuu barnaamijka saddexaad u lahaa waxa jiray ilaa intuu madaxtinimada hayay waxa ku soo beegmay the Cuban crisis wixii la oran jiray ninkii Ruushka ah Khrushchev wuxuu soo dhigay gantaalo badan ayuu soo dhigay jasiiradda Cuba khatarna ku ah marka wadankan Mareykanka oo duqeyn karay gantaaladaas duqeyn kareen magaalada maadaama de Cuba ay aad ugu dhowday Mareykanka marka madaxweyne John F Kennedy wuxuu sameeyay inuu go'doomiyo waxaan daabo ma garanaysaa wadanka Cuba saasuu marka Khrushchev ninkii loo oran jiray Soviyetka maamuli jirayna uu uga laabtay taasana marka badbaadisay nuclear war uu ka dhaco qodobka afraadna waxa weeyaan wuxuu ahaa nin u jilicsan oo u hoggaansan oo u wanaagsan dadka masaakiinta ama madowga ama midkoorka lagu hayo in xaqooga helaan in la vote gareeyo ay vote gareeyaan in jaamacadaha public ah galaan in aan la takoorin isagii walaalkii oo la oran jiray Robert Kennedy oo ahaa xeer ilaaliyay guud ay isla kaashado ku khasbay dadkii cadaanka ah Mareykanka in dadka sida loo galo inkastoo gawaadhi aanay maraynin haddana jidku isagoo ku furayn inaad talowdo lama ogola in la talaabo horta Cabdi wala iskana xamiya wala iskana xaayo waxa la yiraahdaa jay walking baa la yiraahdaa $200 baa laga qaaday hadda sidkaas ku furayn aad marto ma haddana xitaa gawaadhi marayno saqda dhaxaytay ma talaabi kartid waa wadan la yiraahdo wadan rules sharciga shaqeeya dadku ma shaqeeyaan imka warkaysan gawaadhi ma socdaan haddana wali annagii dadkii kaleba waa taagannahay si markay noogu furanto inaan u talowno markaynu gacanta aragno green oo noqota inuu socon karaynaa innaga de xaggeenni umay joojiyeen oo iska tawaabi lahayn innagu bilaa sharci baynu innagu dad baynu ixtiraamnaa sharci ma ixtiraamnaa dhibtu wataa waa kaa imika noo furmay markaasaa la tallaabayaa dad fara badan baa halkan jooga Cabdow oo
dalxiisayaasha kaxeeya oo qaarkood imika ay nooga warramayeen ninkanaa ka mid ah markaa dadka maxay u sharaxaan kuwaas dadkan waxay u sharaxaan taariikhdii soo dhacday waxay u sheegayaan siduu madaxweynuhu u dhintay halkuu marayey sidaan loo hayn maxaa la yidhaha ciddii dishay maadaama ninkii dilay isla markiiba la khaarijiyey marka dhibaatada madaxweynaha dhimashadiisa dus hoogan waxa weeyaan maxkamad lama saarin ninkii afkiisa lagama hayo inuu isagu dilay mala awaal badan iyo conspiracy theory waxa la yidhaha ayaa ku badan nin kastaba meel buu geeyay taasaana keentay dee filmo badan laga sameeyo Soomaaliya taasaana keentay nin kastaba inuu sheeko cusub la yimaado imika halkaa dhismaha laftiisa taariikhdan akhriyay cabdi waxa ku qorayd sida la sheegay inuu ninkaasi dilay laba laha isagaa dilay ninkii dilay magaciisu muxuu ahaa sida la sheego Lee Oswald baa la odhan jiray halkan waxay ahaan jirtay book depository meel buugagta lagu kaydiyo Lee Oswald halkan uu ka shaqayn jiray marka waxa la yiraahdaa sida sheegay tabaqa lixaad halka ugu sareysa midigta ka qabanaysa halkaas laga soo toogtay marka waa ka ugu sareeya bade ugu sareeyaha marka waxa la yiri dadkii ka shaqeynayay roonimadii soo galay liiskoogii waa la hayaa markii dambe ee meesha laga raadinayay magaranaysa booliisku soo galeenna Lee Oswald baa laga waayay liiskii qorigana isaga lahaa baa meesha yaalay qori baa laga tagay meesha laga soo toogtay meesha saas marka loogu maleynaya inuu ninkaasi toogtay cabdi waxa aad iyo aad ii xiisa geliyey oo laga yaabo dad kalena inay soo arkaan cabdirashiid cali sharmaaka Allah u naxariistay madaxweynihii Soomaaliya 26 bishii November buu soo booqday dalkan Mareykanka isagoo martigelin wanaagsan ka helay madaxweyne John F Kennedy labadooda dil 69 baa dabcan cabdirashiid la dilay laakiin isagana askarigii la yiri uu dilay markiiba waa la khaarijiyay Soomaaliya waa run waxa weeyaan conspiracy halkaas ka imanaya mar haddaan afkii ka hayn ninkii dilay ama maxkamadaad soo taagin amba uuna qiran dan waxa weeyaan waxa soconayso askarigaas wuu dilay iyo ma dilin inigaas dilay ma dilin war weey cabdirashiid wuxuu yimid waqtiga 62kii markuu madaxweynaha John F Kennedy madaxweynaha ka ahaa si fiican waxa loogu soo dhaweeyay Washington Soomaaliya bariga waxa ahayd meel aad iyo aad ma garanaysa loogu hanweyn yahay oo caanka wadannada Afrikaanka maqaam sare lagu soo dhaweeyay cabdirashiid Allah u naxariistay dabcan de waqtigan waxa jiray dagaalkii qaboobay adduunyada oo reer bari iyo galbeed baa la isu hayay Soomaaliya waxa tiri aad baa loogu hanweynaa laba sanadood unba marka Soomaalidu ay xorriyadda haysteen marka waxa la islaam maqaam sare gaari karaan halkay raaci ilaa laba tiim oo meesha jireen NATO iyo Warsaw Blocks bay kala hayeen istiraatiijiyana way ku noolaa marka waxa courting baa la yiraahdaa waa la soo xudxudanay inay NATO raacayso dekada berbera xamar maqaam khayran ku naalo waxa soo ilba markay noo ahaa meel laakiin dad ahaanna waxa la islaa waa dad meel sare gaari kara soo dad wanaagsan way noo hayeen imku minu xumaanay dad maqaam wanaagsan oo dun wanaagsan bay noo hayeen nasib darase waxa weeyaan saddex sano u dambeysay way ka fognaay dad wanaagsan ma lihin maadaama daaqadii aragtaan laga soo toogtay madaxweyne Kennedy halkii uu marayay oo iyaduna calaamadsan oo wadada ku dhex taala masjidka ayaanu idin tusi doonaa وافي اب وابلكيشن عصري oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD Sahal EFC Plus xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid وافي اب kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka وافي isku xiraha qaran joogta iyo qolban joogta waxa la sheegay in madaxweynuhu ka imanayay jidka halka soo mara isaga iyo dadkii la socday badnaa
واي jidkan waa markaa halkan soo marayo one way ah ها markuu halkaa maraya calaamada labada calaamadood وهلك علامة ku taallay ma calaamada ku taalo ها oo xaggaana u sii jeedo ها وهلك lafteeda Soomaa waa halka laftigeega ha وهلكii lagu toogtay madaxweyne Kennedy ayaa wuxuu qorigu ka soo dhacay dabaqaa sare ها markaas si jeedkiisa uu kaga dhacay waxa ku dhaawacmay gobornarkii gobolkan oo la socday iyo madaxweynaha gobornarka waxay kaga dhacday gacanta madaxweynaha waxa kaga dhacday qoortiisa iyo dhabar marka isbitaalka wadnaf lagu gaarin miya isbitaalka waa la geeyey laakiin pronounced dead bay dhahay markii meesha la geeyey dhakhtarka meesha jooga laga yaabo ka hor inuu soo dhintay laakiin dhakhtarka meesha jooga waa inuu caddeeyo ilaa uu dhinkan uu dhintay marka shock weyn baa ku dhacay dhulgariir weyn baa ku dhacay wadankan madaxweynaha loo jecel yahay oo da'yar oo waxyaaluhu qabanayay ahaayeen waxyaalo runtii dadka soo jiitay sidaad ogtahay gobolkan dagaal wuxuu soo maray ahayd civil war buu soo maray هاي marka koonfuriga waqooyi baa loo kala deganaa marka madaxweynaha la doorto waqooyiga laga doorto ku-xigeenkiisa hadii goor weyn oo hadlaa koonfurta LPG nin reer Texas oo ahaa marka saas la isku soo dhaweey Texas way jeclaayeen ninkan laakiin haddana dee waa qadar ka dhacay wuxuu lagu dilay ninka odayga lama hayuuni si cad looma hayo ninka John F Kennedy ninkii dilay wuxuu ku dilay طبعا laakiin qoyskoodu iyagoo dabcan de magacii weynaaye Kennedy ka faa'iideysanaya siyaasadda kama wada bixin Soomaa ha ma siyaasadda reer Kennedy oo siyaasadda ku wada jiraan waxa weeyaan madaxweynaha Kisakow walaalkii oo la oran jiray Robert F Kennedy waxa dilay nin la oran jiray Sarxan oo Syrian oo isagana waa la dilay هاي kabacdi waxa soo galay Ted Kennedy oo walaalkii ka yaraaha ayaa isaguna senator ahaan jiray ilaa muddo dhowr iyo 30 sanadood wuxuu dhintaan ma leeyahay sanado ka hor buu dhintay inama ay sii dhaleen ilma Kennedy ayaa iyaguna baarlamaanka ku wada jira ilaa alaankii qaar baa ku jira marka waxay ahaayeen family waa ku taligii ugu horeeyay marka lama ogolayn inuu ku tali ka noqdo oo Catholic baa madhabta Catholic waa هاي asal ahaan de Irish buu ka soo jeeday Soomaa Irish waa ku tali Irish Boston bay ka yimaadeen Boston iyo New York iyo Philadelphia iyo Catholic ku badan yihiin sida Talyaaniga ugu badan yihiin dhulka waa Biden baa ku xigay wax madaxweyne Catholic oo dadka waa Protestant iyo Orthodox iyo dhinacyada evangelist qolada marka 350 kun ee qof ee dalxiisayaasha sanad walba halka yimaada imika aynu taaganahay maadiyada dhanba ka yimaadaan cabdi duunkeedu bay ka yimaadaan nin kasta bisha 22 marka halka joogto dadka iskugu yimaadaan nin kasta waxa la weydiiyay halkee joogtay markuu Kennedy هاي nin kasta wuxuu soo xasuusanaya halku joogay haduu jirayba badanaa dad waaweyn oo taariikhda la socdo waqtiga noolaa ayaa halka yimaada sida lahayd aabahaba uu la socday taariikhda marka Soomaali badan waxa ka maqlaayay John F Kennedy maalintii la dilay nin kasta wadada la weydiin marka halku joogay sanadkanna waxay kaga sii mudan tahay sanadadii hore waxa weeye sanad guuridii 60aad ka soo wareegtay dilkii Kennedy Soomaa waa ruway 6 sano hadda gaadhay November 6 sano noqonaysaa dhimashadii madaxweynaha John F Kennedy waa taariikh runtii aad iyo aad u weyn nin la jecel yahay oo saan ku sheegay ilaa alaan kana Mareykanka ka sheekeeyaa John F Kennedy madaxweyne kastoo yimaadaba halbeeg buu yahay waa lagu qiyaasaa sidii Kennedy ma noqonaysaa هاي marka halbeeg u noqoto ama meel xad dadka lagu qiimeeyo noqoto waa wax weyn wali waxaanu ku sugannahay bartamaha magaalada Dallas imikana waxaanu ku sii soconnaa taalada markii dambe loo dhisay madaxweyne John F Kennedy oo dabcan magaalada lagu dilay
laakiin inta aanan taallada gaarin ayaanu taariikh aad iyo aad magaaladan muhiim ugu ah dhexda kula kulannay cabdow gurigan naga dambeeya muxuu yahay halkan waa cabin magaalada Dallas laga dhisay 1841 dhowr sanadood magaaladu jirtay waa dhismihii ugu horeeyay downtown-ka magaalada laga dhiso oo de sidiisii buu dhisan yahay looxna uu ka samaysnaa cedar baa la yidhaahaa geedkan looxa laga sameeyey nimanka Turkey ka yimid gobolada East ka yimid bariga marka dadku waxa ku soo horeyn jireen bariga galbeedna waa loo socon jiray طبعا dadka marka aad leedahay waxaad uga jeedaa dadkii cadaanka ay Yurub ka yimid ka bacdina dhulkani cid kuma nooleen Red Indians iyo kuwaas ma ku noolaa dawal xooga iyo xoogiiba marka Dallas wax ka mid noqotay magaalooyinka la xoogo wax ku nool area wax ku noolaan jiray Indians Apache qolada la yiraahdo ayaa ku noolaa ka bacdina waa adeerka ayaa marka ma la oran karaa de waa dhismihii ugu horeeyay weeyaan downtown Dallas laga dhiso laga yaabo in agaalka ay ka dhisnaayeen laakiin halkan waxa daba cajiib ah maadaama dalka Mareykanka oo dabcan de magaalada Dallasna ay ka mid tahay uu aad iyo aad caan ugu yahay dhismayaasha dabaqyada ah ee aadka u dhaadheer ee quruxda badan ee muraayadaha inkii ugu horeeyay laga dhiso wali la hayo 1841 wali sidii uu yahay sidii loo dayactiray waxay tilmaamaysaa taariikh weyn contrast baa la yidhaahdaa halka ka timid iyo halka joogta maanta ayaa labada dhismo markaasaad garan karaysaa halkaad u socoto waxaanu soo gaadhnay taallada lagu xuso madaxweyne John F Kennedy oo magaalada lagu dilay taariikhdiisii oo dhan halkan ku xusantahay inuu madaxweyne John F Kennedy dhashay 1917 oo uu dhintay markii magaalada lagu dilay 1963 laakiin taalladan sida halkan ku qoran waxa loo gartay in lagu xuso madaxweyne John F Kennedy 24 bishii June 1970 abdi halka waxa ku xusan in dilka madaxweynuhu magaaladan uu bedelay adduunyadana uu bedelay waa runo magaaladan uu bedelo magaaladani wanaageegiiba waxaad hareeyay dhimashada madaxweynaha waxa fikrada Soomaaliya hore ku sheegay la infamous baa la yiraahdaa waa meeshii madaxweynaha ugu caansanaa lagu dilay marka boog yar oo waxay leedahay shaabad baa ku taala adduunka kalena way bedeshay nin caan ah oo spirit wanaagsan leh oo dadku aad wada jecel yihiin baa ku dhintay halkan taallada sidaad u arkayso way ka yar duwan tahay sida taallooyinka loo sameeyo korka way ka banaanta waxa la yiraahdaa open womb tomb baa la yiraahdaa waatay open tomb waxa weeye waxa looga jeedaa marka waxa looga jeedaa spiritkii madaxweynihii baa ayaa kor u baxday oo lama xili karo waa karaamadii madaxweynaha dhaca xagga sare laga furay marka dhinacaan uu ahaa ilaa jecel buu ahaa magaciisina waa halkaa ku qoran John Fitzgerald Kennedy marka efta dhexda waxay u taagan tahay Fitzgerald waa magac Irish halka ka yimaadeen la soco sawir kuma yaalo taaj kuma magaraysa xisbigiisa kuma yaalo memorialka waxa loo sameeyay badanaaba qofka scriptkiisa la sameeyo waxa loo sameeyay bahalka yar sanduuqa yar madow oo boogta madow ee magaalada ku sheegayso boogta madow magaalada iyo karaamadii maxaa tiri madaxweynaha ayaa kor u baxaysa lama xilin moogta niga architecture-ka sameeyay jeedada saas just balad Campbell iyo maxaa la yiraahdaa ku xusna madaxweynaha run ahaantii taariikh fara badan baa halkan ku duugan malimkana museum-kan soo eegaynaa waxaanu imka soo galnay museum-ka ama madxafka lagu daawado ama lagu soo bandhigo taariikhdii madaxweynihii Mareykanka ee la dilay 22 bishii November sanadkii 1963 waa muddaha tan laga joogo 60 sanadood John F Kennedy laakiin markii aanu isku daynay inaanu galno waxa la noo sheegay inaan kamaradaha la ogolayn iyo in wax laga duubo marka waa barxadiisii hore weeye marka qof kasta oo cabdi halka yimaada markuu dabadii iyo soo daawado dhulkan soo maray halkan ku soo dambeeya waxa lagu ururiyaa information badan oo magaranaysa video leh oo visual leh oo magaranaysa sidii madaxweynuhu socdaalkiisa soo marayay
فيديوشي laga soo wado duub wax walba meesha la isku wada keenay oo dadka lagu tusaa atig waxa ku jira meel la yiraahdo maxaa la yiraahdaa meel la isku tuso video isku tuso waxa kale oo lagu tusiyay halkii uu ninku taagnaa iyo qorigii meesha yaalay iyo halka ka soo toogtay daaqadii baa lagu tusayaa waxa idin wada just wada information ismaan oo la daawo $18 baan lagu galiyaa wax holo xoogay ha dad badan oo xiiseynaya jira sidaad u sheegtay waxa weeyaan waxaad istaagtay hadda meeshii Kennedy lagu dilay moogta waxaad tidhi dib u soo noqon maayeen way taariikh iska reebaa waxa la yiraahdaa maalin walba lama yimaado marka nin kasta wuxuu doonayaa inuu yiraahdo halkaasaan joogay waan soo arkay waxa la yiraahdaa markaad warka raadinayso moogtay and this is the place that warkii ka raadinayso markaa imika cabdow taariikhda intaas ku leeyahay waxaan istaagay buqaddii lagu toogtay baaburkiisu marayay madaxweyne Kennedy aad iyo aad baad u mahadsantahay barnaamijyada dambe ayaan ku kulmi doonaa haddii alla yiraahdo laakiin bartamaha magaalada Dallas ayaanu idinka macsalaamaynaynaa aniga iyo injineer Cabdi oo isagu muddo dheer deganaa magaalada Dallas nasiib wanaagna maanta ay noo suurta gashay magaalada aan wada gallo barnaamijyo kale inuu lahaan doonaa haddii alla yiraahdo inta ka horeysa nabadgelyo